بسم الله الرحمن الرحيم كسو dhawaada waa casharkeeni access 2013 adoo ku sameeyay database casharkeeni hore waxaan ku soo qaadanay sida la iskugu xidhatay belada inagu isticmaalnay relationships hadda waxaanu eegi doonaa bal farqiga u dhaxeeya relationships iyo inagoo tigta saarayna labada waxa ah cascade delete iyo cascade update relationship waxaanu niri marka aad doonaysid wax ka bedeshid marka hore midabka tigta saaraysa hadda tama kala ma saarna laakiin tan waa tig oo bol weeye double click ayaa siinaysa kabacdina waad ka qaadi kartaa enforce-ga ama double click ayaa siinaysa waad ku soo celin kartaa ama right click si kabacdina edit relationship kabacdina waad ku soo celin kartaa relational enforce relational integrity waayo waxaanu eegi doonaa bal maxay qabanaysaa enforce relational integrity ayaynu marka hore eegi doonaa enforce relational integrity haddaynu ka qaadno waxay sameyn doontaa bal eega waynu ka qaadnay waxaanu tagnay customers laba qof ayaa inoogu jira waxaan rabnaa inaan orderka ku soo darno waayahay qofka aan jirin oo ID-giisu yahay 7 ayaynu wuxuu order sameeyay maanta oo ah bishii ay 12 bishii 12 tahay 2016 kabacdina close all ayaynu leenahay yes ma save gareeyaa yes ayaynu leenahay haddaynu orderska double click siino waxaan aragtaan customer ID 7 yahay oo dalab sameeyay date-ka maanta ah customer ID-giisu 7 yahay xaggan ma ku jiraa kuma jiro marka halka waxa ka jirta khalad ayaa ka jira waa inaynu soo dooranaa enforce relational integrity marka hore horta waxaanu dhaliidaynaa dalabkan meesha ku jira khaladka ah hadii kale way naga diidaya waynu dhaliinay kabacdina waxaanu tagaynaa database tools relationships ayaynu tagaynaa bartii relationships ku inoo save garaysan yihiin kan ayaynu marka hore bol ka dhigaynaa double click ayaynu siinaynaa kabacdina waxaanu dooranaa enforce relational integrity okay ayaynu leenahay wuxuu yiri tablada ayaa furan marka waynu marka hore tablada soo xidhnaa table kala dhaho order waynu soo xidhnaa okay waxaanu soo xidhnaa customer iyo order waynu soo xidhnaa okay double click si dooro enforce relational integrity wuu sameeyay relationship-kii bal waayahay maanta waxaanu imaanaa order waxaanu eegaynaa customer-kii lambar 7 oo aan jirin ID-giisu aan ka jirin customer inuu sameeyay order bisha 12 haddaynu tab nidhaahno ama enter wuxuu soo qorayaa waxba kama bedeli kartid waxna kuma bedeli kartid sababta table-ka la xidhiidha customer-iska kama jiro order ID uu yahay 7 ka yeeli maayo inaad ka gudubtid sina kaaga yeeli maayo waa inaad halkan mar walba xasuusnaataa inaad soo bedeshid customer ID-ga marka waxay noqonaysaa inaad soo bedeshid orderka oo ka dhigtid qof jira tusaalahan customer waxa ka jira labadan qof Cabdi iyo Faadimo Cabdi ID-giisu waa 1 Faadimona waa 2 haddaynu ka dhigno tusaalahan 2 waynu dhaafi karnaa oo order waynu sameyn karnaa haddaynu ka dhigno 1 waynu dhaafi karnaa oo dalab uu sameyn karaa laakiin haddaynu la nimaadno qof la dhaho 9 oo aan jirin oo uu dalab sameeyo maanta oo aynu tab nahno wuxuu ku dhahayaa ma jiro dalabkani marka waxaad fahmaysaa shaqada ay ku qabanayso enforce relational integrity close all ayaynu leenahay waayahay waxay ku qabanaysaa cascade delete iyo cascade update haddaan is dhaho customer order sameeyay delete customer kala dhaho tusaalahan customer ID-ga la dhaho 2 oo ah Faadimo dalab bay sameysay marka ma delete karaa haddaan halkan imaado waan is dhaho Faadimo delete wuxuu ku leeyahay ma delete kartid Faadimo sababtoo ah waxay ku jirtaa dalab ayay ka sameysay table kala orders marka halka waxa ka fahmaysaa macmiil dalab sameeyay inaan la delete karin waayahay waxaan tagaynaa database tools kabacdi relationships waxaanu halkan ka dooranaynaa marka hore waxaanu soo xidhaynaa customer waynu xidhaynaa orderna waynu xidhaynaa halkan ayaynu double click siinaynaa cascade delete ayaynu tigta saaraynaa okay ayaynu leenahay waxaanu imaanaynaa order stable halay customers Faadimo ayaynu isku daynaa inaynu dhaliidno ma dhaliidi karnaa haayo maya go'aanso waynu dhaliidi karnaa waa dhaliiday ayuu ku leeyahay markaan orderska tagnana meeshii Faadimo ku jirtay muxuu ka dhigayaa deleted ayuu ku soo qorayaa marka taasoo kale looma baahna inaad tigta saartid qof order sameeyay inaad dhaliidido kale cascade update-na waa la mid qofkii orderka sameeyay waxa weeye wax ma ka bedeli karaa mise kama bedeli karo shaqadaas oo kale ayay qabanaysaa marka hore table-adeena dhan soo xidhnaa yes aan tagnaa database tools relationships aan tagaynaa kabacdina double click ayaynu siinaynaa cascade delete ayaynu waxaanu ka soo qaadaynaa tigta yes ayaynu leenahay cascade update xataa waad adeegsan kartaa mararka qaarkood oo
qof dalab sameeyay in wax laga bedeli karo dalabkiisii laakiin sida ayaynu u deysanaynaa aad iyo aad ayuu mahadsantihiin waa inoo casharkeena dambe oo ku saabsan ciladaha kaaga imaan kara relationships-ka iyo marka aad isku xidhaysid